Afrika wax walba ka filo garoonkii lagu ciyaarayay ayaa lagu kala cararay koobka qaramada qaaradda Afrika kadib markii sidaan ay dhacdo. Hello. Wala kano. haddaba adduunkii oo dhan ayaa maanta ka yaaban waxa ka dhacay ciyaartii u dhaxaysay xulalka Ghana iyo Cape Verde. anigu waa Asijani halka iga daawanaysan waa Asijani. sida wada ogsoontiin koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa ka socdo wadanka Ivory Coast. waxaa halka ku wada ciyaarayay xulalka Ghana iyo waliba Cape Verde. taageerayaashii halka iskugu imaaday ciyaartii oo xiiso lahayd kadib markii xulka Cape Verde ay 90kii ku dareen goolkii labaad ee guusha 4 daqiiqo ciyaarta lagu daray ayaa mar qura waxaa dhacday in garoonkii oo dhan ay sumeeyaan taageerayaashii xulka qaranka Ghana. dhuuso ayay garoonkii oo dhan ku wada fasaxeen. footballka waxaa la dhahaa waa isdhaxgal iyo waliba xasilooni balse waxa ay sameeyeen taageerayaasha xulka qaranka Ghana waa wax ka baxsan footballka iyo waliba anshaxa bini'aadamka oo dhan. taageerayaashii Cape Verde garoonka ay isaga kala carareen sidoo kale qaar kamid ah taageerayaashii Ghana ayaa meesha ku kala cararay. waxaa la sheegay in sheekadani ay mission ahayd isla ogaayeen haddii xulkooda dhibaato ku dhacday macnaha haddii guul darro ay sababsadaan oo kale ama ay guul helaan baaqa ahayd dhammaantood cambuulo ma isku soo dirjiyeen ma aqaan hal maraaf waa la iswacwacday hebelow fasax laba gool 90 xogaa ma galgeli wax noo harama leeyahay aan fasaxno waxa hayno hal mar ay garoonkii oo dhan waawaye ka dhigeen asaa hadda meeshii waa lagu kala cararay wax jooga la waayay. alaabtan waxaan isleeyahay waxay u tahay alaab ay ku dagaalgali karaan koobka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir ee dhawaan la wada in dib loo abaqaado. taageerayaashan Ghana waxa ay sameeyeen waxa ay noqdeen waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee footballka lagu arko. Afrika hadaa joogtid wax walba waa ku arkaysaa. xulka qaranka Ghana taageerayaashooda oo war-saxaafada soo saaray ayaa ku sheegeen in arrintaani aysan isla wada ogeyn ee ahayd mid qaas u ah gruubkii taageerayaasha kamid ahaa. waxa ayna raaligelin ka siiyeen Cape Verde waxa meesha ka dhacay. waxa meesha ka dhacay wax qurux badan ma ahayn. waxaan ka cabsanayaa in dhalinyaro badan oo taageerayaal ah ama Galmudug ama Jubbaland ama Banaadir ama Hirshabelle afarta isku soo hartaatan in inta cambuulo iska soo dharjiyaan garoonka stadium Muqdisho waawaye ka dhacdo ee listaataab intii la isturiyay lahaa alaabtan la isku kala buritaan ron sunta indhaha ka ilmisiisa soolidin kuma shubinaa sunta sanka dareemaha ka tirtaa liiraatan kala carar wixii koobka Afrika lagu arkay waa wax yaab loo ahaa. koobka Afrika oo dhawaan bilaabmay waxay ahayd markii dhacday aan kaga soo gudbinay dhawaan ciyaaryahan sheegay hooyadiis ayadoo dhimatay kadib 4 sano kadib dhashay. haatan ciyaarihii oo wajiga koowaad lagu jiro xulka qaranka Ghana laga diiwaan galiyay waxa ay sameeyeen garoonkii waxa ay ka dhigeen. haddaba ciyaarahan oo sii socdo waxyaabo yaab badan waad ka arki doontaan. aniga halkan waxaan idinku joogaa wax walba oo soo kordho oo yaab ku saabsan ama footballka ama waxyaabaha caadiga ah ee arrimaha bulshada inaan halkan kugula soo wadaago. muuqaalka like saar asxaabtadan u share garay soona mission garay xariifa is leedahay missionkan uu ka fulin doonaa garoonka stadium Muqdisho.